السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي وايدين ودا السلام دمانتينا أصحابي maanta waxaan wadaa fruud aad iyo aad u qabooban maasha Allah markaa qadaysid ama markaa cashaysid kadib aad soo qaboojin kartid. fruudkan adaba qaabka u samaysan waxaan ka samaysanaa insha Allah videogeena qaybta xiga ka faa'iideysta ka fiirsada. alaabta waxaan ku dhadaa baratid maasha Allah ka faa'iidi doontaa. walaalaha qaaliga ah maasha Allah waa aragtiin fruudkeeni. fruudkaad haysatid isticmaali kartaa in fruudaad gurigaaga ku yaalo. ani hadaba maanta intaan rabaa inaan isticmaalo insha Allah. waa ognahay fruudka faa'iidooyinka uu leeyahay ma lagama sheekeyn karo. faa'iido badan uu leeyahay. marka qaabkan u samaysanay iyo waxaan ka samaysanayno iyo saani talaajada iyo qaabkii aan hadda u sameeyo insha Allah ka faa'iideysta. hadaad ka heshidna walaalaha noogu sii share garay insha Allah. ani hadda maanta waxaan rabaa inaan isticmaalo 2 xabo liin macaan iyo maxay ahayd 2 xabo tufaax iyo arbay. intaan iyo waxaan rabaa cananaaskaas inaan isticmaalo. marka insha Allah any fruit aad gurigaaga ku yaalo waa ka isticmaali kartaa. camba hadaa haysatid hadaa maxay ahayd sheegadi any fruit oo dhan intaad haysatid aad isticmaali kartaa. cananaaskani noocaan isticmaaloyaa oo gasac ku jira iyadoo fresh hadaa haysatidna ka sii fiican intaad jeceshahay. iyo caanaha aan isticmaalay caanaha iyo horta caanaha aad u jeclahay waxyaabo badan aan ku darsadaan u isticmaalaa. haddana maanta qaybtan fruitkan u isticmaaloyaa saa u aragteenba masha Allah. saxabta qaaliga ah hadda waa inoo soo diyaarinaa khudaarteeni. fruitkeeni inoo soo dhaqan insha Allah inoo soo jarjaraa. markaan soo diyaariyo soo nadiifiyo insha Allah ayno balana saxaabtayda lana socda insha Allah. asxaabay waa aragtiin waan soo diyaariyay inaan cananaasteen ku soo diyaariyay khudaarteena waa noo soo jarjaray insha Allah. cananaasta waxay ahayd way badneed wax yaraan ka soo reebay insha Allah. baaqoligaas aan ku keenana dhamaantooda fruitkii aan soo wada jarjaray albaolkaas yar yarna ma ahan waaweynna ma ahan normal aan u soo jarjaranay. intaana isku darsanayna insha Allah. maaragtiin cananaasta wax yar lay ka isticmaalay inta waxaan rabaa inaan khudaarta isla sinaato aan kala badanin. gasaciyo intaasaan ka soo qaatay inta kale waa iska reebay masha Allah. hadda aad haysid qaraha camal aad u macaan yahay asiixtaa yani fruit aad jeceshahay ka samayso. hadda waxaan ku darsanaynaa caanihii iyo horta ahayd qaandadii saddexaadaan ku darsanay 4 qaandaan ka dhigay masha Allah. hadda fruitka badan yahay fruit badan aad samaysan rabtid masha Allah guriga dhan aad u sameyn rabtid ka sii badsanay mar walba adi caanaha qiyaastaada ku xiran tahay qaabka u samaysato. hadda fruitkaaga badan yahay caanaha iyo horta wax yar u sii badsanay haday normal yahayna masha Allah qiyaasta kulli waa fahmaysiina u maleena. saxaabtayda qaaliga ah si fiican isku dhaxgelinayna iiga gaartaa rabaa iyaga dhan kadib insha Allah talaajada inoo gelina waxaan sugaynaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ilaa inuu qabowdo. markaan uu qabowdo inoo balana insha Allah. hadda waa inoo diyaar talaajadii aan gelina si fiican aan isku soo qasay talaajadii aan gelina insha Allah after 15 minutes. saxaabta qaaliga ah inoo soo qabowday fruitkeeni masha Allah waa aragtiin. meeshaan waxaan ku haysanaa baaquliyashan ku shuban lahayn fruitkeeni. hadda baaquliyashan inoo soo shuban insha Allah. alaabtan caadi ma ahan ilmaha xitaa way jecel yihiin. marka haweenka cashada aad siisid ama qadada siisaas ka siin kartaa. ilmaha iyagoo haddana fruitka la siinayo mar walba iska cunayo marka adiyadan caanaha inta ugu dartid aad u qaboojisid hadda xilligiisa marka waaye guriga la iska jooga kuleel zaaidaa jira marka
alaabtan ilmaha way qaboojinay, naftaada ku qaboojsanay maasha allah. ilmo walba fruud uu jecel yahay, ma wada cunaan khudaarta oo dhan. waxaa u sameynaya mar walbaba kuwa iyaga jecel yihiin ay cunayaan badnaa. waxaa ugu sameynay 10 daqiiqo kadib markaa u qabowsaan u sameysid, maasha allah way jeclaanayaan, ilmihii way xiiseynayaan. caanahan waxaa waaye dhadhankooda dhadhan xun ma baahan, waa caano iska fresh oo yogurt ah, aan caano garoor iska qabooban waaye. caloosha xitaa way u fiican tahay, way ku qaboojinay. marka insha allah walaalaha qaaliga ah, saanaan kusoo dhammaysanay. 4 baaquli aan ka dhiganay. markaa cashaysid intaadi ama aad qadaysid habeenkii casho culus aad sii raadin lahayd, alaabtan yaraa waxaan ku dhahay maasha allah samaysanay dhag casho kale ma u baahnid. baaquliga fruudka intaad samaysatid aad cuntid, wax kale ma u baahnid. marka maasha allah walaalaha saana noogu soo baxay, waa aragtiin shaantiyaasha yaryaraan soo geliyey. daarad farkeeti yaraa ku cuni kartaa maasha allah, wax diidahay ma lahan. marka walaalaha qaaliga ah, videogeena noo sii sheer gareeya insha allah. hadaa nagu cusub tahay soo dhawaa ku leenahay, hadaa horena la joogtiin maasha allah. dhiirigelintiina wax ku nahay comment like waa xaggiina. saxaabay maasha allah, saxankan yaraan kusoo diyaarsanay maasha allah. waxaa idin leeyahay walaalaha kale uga faa'iideeya, inoo sii sheer gareeya videoga. commenti like waa dhankiina, dhiirigelintiina wax ku nahay. aad u mahadsantihiin sida qurux badan oo noogu xiran tihiin, mar walba noo dhiirigelisiin. walaashayna Faadmo oo idin leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.